dintii calankaan ku gaarto cirka midabkaaga cawaala u doortay markii lagu ciile colaad kugu raagtay carradaya dintii calankaan ku gaarto cirka midabkaaga cawaala u doortay markii lagu ciile colaad kugu raagtay inaadan cidloonban ku sii cadkayge cawaalaha ooyin inaadan cidloonban ku sii cadkayge cawaalaha ooyin calankii Puntlandba ku yaal cirifkaage calankii Puntlandba ku yaal cirifkaage caddaanka ka muuqda caliyoona badweeye cawaale hawaayi caddaanka ka muuqda caliyoona badweeye cawaale hawaayi carradaya dintii calankaan ku gaarto cagaar ku barwaaqo cigaagta dhulkiise ciddiisa udgoonba adduunka ku caane carradaya dintii calankaan ku gaarto cagaar ku barwaaqo cigaagta dhulkiise ciddiisa udgoonba adduunka ku caane kacaagan dadkiisu colaadda sokeeye codkooda dhagayso kacaagan dadkiisu colaadda sokeeye codkooda dhagayso cimilo wanaagsan codkeenna ku maalo cimilo wanaagsan codkeenna ku maalo rabbow cabsidaaban cidlo u fadhiyaaye Soomaali cayni rabbow cabsidaaban cidlo u fadhiyaaye Soomaali cayni xafladii baynu furanaynaa waxaan rajaynayaa in aynu ismaqalno oo hadalka xoogaa tartiib u dhigno si uu qofka khudbadda khudbaynaya oo soo jeedinaya hadalka loo dhagaysto innagoo dhan aynu isku maqalno kow waxaan u mahadnaqayaa gabdhaha sharafta leh ee ka soo qayb gala xafladdan oo xusay xafladda 27 guurada Puntland oo caawa aynu ku qabsanayno magaalada Calgary aad baan idinku mahadnaqaynaa aad baa u sharafsan tihiin mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waad mahadsan tihiin waxaan kaloo ku xijinayaa ragga sharafta leh ee ka soo qayb gala xafladda oo Soomaali oo dhan ah lama oran karo macnaha waa reer Puntland xafladdan waa xaflad Soomaaliyeed reer walba Soomaaliyeed baa imaanaya
maamul walba Soomaaliyeed baa imaanaya waa Puntland sanad guuradeedii 27aad iyo asaaskeedii laakiin marka la leeyahay Puntland waa hooyadii federaalka waa sida oo kale weey Soomaali cid kasta iyo heer kasta waa u furantay xafladda Puntland aad baan ugu mahadsantihiin waxaan bilaabanaynaa xafladdii waxaan rabaa inaan ku wareejiyo mikrofoonka saaxiibka oo garabkayga taagan labadiisa eraygu ka dhahayaa hadduu ilaahay igu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وسلامتين عشان كل هذا البلد أنا دولامي من وحفلة بوتلان أو تغير لا تسني جلستي أنتي نقصوا كشنا هذه يوم سنتين قبله حفلة نروح لبلد سمين هذه يوم سنين أنا قاعد على عبد الساق حاج حسن قرب وأنا كم ذا هاي يعني يرى وحتى كأساسيسو ورجال اللي يراهدو بطلان فيرست هنا وعلى يراد سقوط واحد جندوه ذي هاي إني بطلان هاي هرمر جارسيان ينبض يقرواقو كدي من الصومالية أنت هذا كذا أي نبض أسقون مرادان مركا لما سنتين يمكن أبسط بشيء أنتم مغنوا نفرسون دونتو هذه يوم سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سيدي مساعد الرجل وحن كسر دوينيا وقف على بعض مقارنة عبد الله إدمو أحمد عبد الحكيم علي عيال ولا بدي سأل سبنا كذا هي كسر هو أحمد فنان كوينة أحمد علي عيال هيا عذيروه لكن أصله ما هي أصله وفرنقية وحوي سياسة الفرنقية وحنا فرنقية سبيشل بلان كسر واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا السلام إلى دمانتين شرف تكسوق الشيء حفلتنا كروح البدن iyo dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed oo aan kala saar lahayn oo qayb weyn oo lixaad ka qaatay salaan kadib waxaan ku bilaabayaa aayadaha Quraanka bismillaahir rahmaanir rahiim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar sadaqa Allahu al-'azim abta'a ta'ayku عائلة بوتلان كصوماليا ما شاء الله وفرحات وين هذا وحنا بحنا عددان حفلتنا وحفلتي وجوه الرئيسي بوتلان الوقت كالجري وكفر برنينا ونوبلو وحياة بدن بينودي ما نحن كقرح بدن سنة كان سنة كذا بيروح رجعين يا واحد وحكة بدلنا وكقرح بدن وفنانين له وعلماء له وضيال له ومدحنا إن نكسوق يقولون إن شاء الله ويقولون ريان مدحنا بوتلان دمانتين وإن السلام يا خير بدنا وإن يرجعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تسيرني سعيد بن أحمد وحنو مرينا يا Soomaaliya waxa ku mahmaada hadal in yar ku koobay yahay waxaynu isnagay oo aynu isku sheegnay inay tahay xafladii Puntland asaaskeedii oo ay ka soo wareegtay 27 sano waa markii ugu horeysay ee lagu qabto taariikhda Calgary أنا غير من هذه الرجال وحسيات نوصلتين هذا ما هذا سنة كذا بيت اللي نقعد دوتا وحنا نقول وعلى رأس ما يدونا وحنا رجينا وهتو إلى هاي إنه أنت النوع يوحي نبات كجاري عافمات إن نقدو إنه وتمدا الدوك مجالوي كودا مجالات وجود توصل حفلة بلان ونقطة نمبر 1 إن شاء الله. وحا كله وحي يريد يكون ببادنية قبل أي شرفت له أي حفلة أجاسمي أنا كنا أنت كران كيجا إن كستوا عن حاجة سي ولا نوع هذا وانو سمين وحين هاي توافق برش سلو أحمد الشاقي صاحبي أحمد سلو الشاقي وكفر برمي
balse dadaal kayaga waanu kordhin doonaa cabdullaahi idmo waxaan idinku bogaadinayaa oo mar iyo labo iyo saddex idinku bogaadinayaa sidii aad uga soo qayb gasheen sidii aad noogu soo ajiibteen iyo sidii ay noogu qabsoon tahay xafladdani aad baa ugu mahadsantihiin dadka kasoo qayb gala dhammaantood hadalka waxaan siinayaa anugu waa qaybinayaa hadalka waa ku dheeraado remidug baan ahay oo waa iska hadal badnaa laakiin hadalka waxaan siinayaa ambassador nin dadku si fiican moodaya baan baa malinaya laakiin jaamac carshe kusoo dhawo waabta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان كسو قيب قلياشا شرفت بدن يا حفلة بودلان تدبي لباتن قوردي بودلان بودلان تدبي لباتن سنة شرتي عادي عاد بانو وهم بليين إنا وعكروا وهم بليين يا قوشا يقارين إذا مدى بودلان على مسكات كقارين تقال كي يلقى العدو وهم بليين يا شعب iyo xukuumad ba uu hambalyeynaya hawsha culus ee dawladaha waaweyn aanay maaragtay ka guuleysan karin iyo ka guuleysteen waxa la yiri qofka aan maaragtay mahadnaqini waxa weeye xitaa diiniyan khatar buu galaya hawl la taaban karo oo way bay sameeyeen waana ka mahad celinayna waana u hambalyeynayna inta waxa ay raaca xafladu maanta baan naloo soo sheego kama aan diyaar garoobin dhammaan waa xaflada ay leeyihiin dadkaas deegaankaas oo dhani waa xaflada aanu maaragtay soo dhaweynayno xaflado badan baynu iska leenahay oo Soomaalidu in dhaweyd basi baynu iska ahayn laakiin guud ahaan wixii wanaaga oo dhan waa wax Soomaali ka dhaxeeya laakiin tani waa xafladeeni waxaan rabay in dhowr odayga horeeyaan oo ninka la yiraahdo de halka bedel yaaba joogay anigu waxaan rabay inaan ugu dambeeyo yeelkeeda waxa weeye hal magac dhabay ama kacday ama kursustatay wax kastaba ha ahaatee si xalfad sharaf badan oo qurux badan oo maaragtay la soo agaasimay wuxuu yiri magaciisa waa lagu soo kadiyay waa meel yar oo aad u degan oo alyaaba sidoo sharaf badan habluhuna waa mahadsan yihiin oo waa laf dhabarteen iyagu bay maaragtay lagu taagan yahay ogaadana oo dumarka lagu baxsaday abar rag oo iska barakaysan yahay in dhawey leeyo jooga rag oo iska khayraysan yahay si ragii hore ma aha waqtigaana sidaa ka dhigtay habluhu marka lambar 1 weeye marka waxaan dadka kula talinayaa midnimada iyo dadku gacmaha isqabsadaan iyo in maaragtay runtii dhammaanteen anigu laascaanood baan ka soo jeedaa ku dhashay laascaanood iyo dad ehela oo hoose oo isku deegaana oo walaalaha oo waxba kala lahayn baynu nahay waxa laga yaabaa markaan laascaanood in ahla isi kala looga dhigo anigu Puntland baan secretary-ga ka bilaabay garow waan ka bilaabay magaaladaydana waa Taleexo 80 kilomitir bay u jirtaa marka aniga qudhaydu marka la eego de waxaan baa hayba maaragtay deegaankaan ahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan xafladan ka soo qayb galo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa xafladan lagu sharfay ee naloo sheegay bedeliyooda iyadoo noo soo gaarsiiyeen waxaan idin leeyahay hadal kale ku sii dari maayo siyaasad ku sii dari maayo hambaliyo aad baan u mahadsantahay jaamac waa hadalku intaasuu ku egyahay jaamacana waxaa kama tegin waxaan kusoo dhaweynayaa xagga gabdhaha u leexanayaa markan waxaan kusoo dhaweynayaa oo dhanka gabdhaha ah oo ay iska soo xuleen muxubo kusoo dhawow mikrofoonka labadaada kelmadooda ka jeedso waxaana filayaa inaad wax aad si fiican ugu faahfaahin doontid xafladan iyo qaabkii u dhacday kusoo dhawow sacabka waa la caajsan maraya kafee meesha waa yaallaa بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتي دمان قبلها يميلش كسو قيب قلي
kasoo qayb galay xafladan quruxda badan sanad guuridii 27aad Puntland FIFA ayaan leeyahay Soomaali FIFA marka alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay sanadkiisa barwaaqo bashbash Allah nagu gaarsiiyo Puntland waa asaasiga Soomaaliya federaalka asaastay haddana waxaan rajaynaynaa inay sidaas oo kale meelo badan ay u xoreyso sida calmakaas u xoreyso ee Soomaaliya u xoreyso insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo ay al-shabaab uga xoreyso haddii Ilaahay yiraahdo waxaan kaloo rajaynaynaa haddii Ilaahay inaan isku duubnaan haddana reer Puntland haddana reer Kalgari Soomaaliya oo dhanba inaan u guntano Soomaalinimadeena iyo qadiyadeena iyo ilmaheena meesha ku noolaan lahaayeen annaga hadda dawlad weyn aan noqonay mustaqbalka ilmaha waxay u baahan yihiin inay Soomaaliya ku noqdaan marka meel qurux badan ay ku noqdaan inuu Ilaahay nooga dhigaan rajaynaynaa wadankeena oo dhan Ilaahay nabad nooga dhigo sida annaga aan Soomaaliya ahaan jirnay marka ardayda ahaan camal noloshii camal inay Ilaahay ilmaha ku galaan haddii Ilaahay yiraahdo ilmaha ay dhalaan Puntland waxaan rajaynayaa FIFA intaas ka badan inuu Ilaahay sanadba sanad u gaarsiiyo marka waa saas haddii Ilaahay yiraahdo hadal kale waa ma badin karaan salaamu calaykum xubba waa mahadsantahay xog kale aysan jirin hadalkii waa dhammaystay waxaan kusoo dhaweynayaa oo ragga xaggiisa ku gunaanaya hadalkayga anna ku kasoo dhaweeyahay maxamuud deere baan rabaa inaan laba kelmadood oo maxamuud soo istaagabti labadaada kelmadood meeshaan iyo wacyigelintaada nin waxaa tahay wax badan og marka aad baan kusoo dhaweynaynaa kusoo dhawow sacabka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلته هذا اللي هو قال قلت اسمه هاي وتكتشفتها الكذا إن شاء الله وهي هاي قرتان لها مركب والسلام يا حفلته قوة بدن قبلها نليردي وياشا ويويك ما تخفص وساق الميشن سيد الشيء وحفلة بدن لها هاي وسنة قولي كتب العتنادة sida loo ogyahay Puntland in badan lagu soo caanay nabadii caanamaalay Soomaaliya lafdhabar bay ka ahayd ilaa haddana way tahay marka anigu hadda waxaan ahay in badan way ganacsiga kala socodaan suuqiisha waa ugu reesisi ama gobolka cusub waqooyi bari marka Puntland iyo waqooyi bari waxa kala ahaa anigu waxaan aaminsanahay Soomaalidu waa mid meelay joogtaba nolol iyo nabad bay rabnaa marka qofkii nolol iyo nabad raba meel kasta ha joogo isku dad baan nahay Soomaaliyana waa mid Puntland waa dawladeedii Soomaaliya waa dawladeedii waxaan leeyahay meel kasta Soomaali joogto ha noolaato habar waa qowdo ha israacdo Puntlandna ha waarto insha Allah marka intaas ku soo gabagabeynaya waan salaamayaa sorry xawliye hadalka oo lagu gaaday marka assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan ku nasanaynaa DJ-ga inoo soo deenaya heesaha wax yar baan nasanaynaa wixii kafee cabaya wixii biyo marka DJ مصلحة ونوفر وياه
Look at
Sorry.